qofkan waa qofka ugu miisaanka culus uguna buuran dunidan. sirwaalka uu xirta ninkan 2 ilaa 3 qof ayaa hal mar xiran kara. cuntada uu cunana kaba daran. haddii aan ku sheego culayska miisaankiisana waad yaabi, laakiin jaceyl dhib gaarsiiyey ayaa margalay ninkan sidan u buuran. haddaba yuu jeclaaday, bal aan kuu sharxo. ninkan waa qofka ugu miisaanka culus dunidan aan guudkeeda saarannahay. ilaa hadda kaalintaasna cid ka baxsata waa la laayahay. magaciisu waa John Brewer Minogue. waa muwaadin Maraykan ah. dharka uu xiran jiray iyo cuntada uu cuni jirayna lama qiyaasi karin. kumana fariisan karin kuraasta caadiga ah aan inaga ku fariisano. isagoo qofna caawin ayuu socon jiray. 1941dii ayuu ku dhashay magaalada Washington ee dalka Maraykanka. bilowga yaraantiisa isagoo yar ayuuba jir ahaan koray ninkan. isagoo 12 sano jir ah, culayska miisaankiisa wuxuu ahaa 133 kilogram. 22 sano markuu jirayna miisaankiisa wuxuu ahaa 230 kilogram. si tartiib ah ayuu u koray ninkan. 36 sano jir isagoo isbitaal ayaa la dhigay xaaladda caafimaad darteed. neefsashada ayaana dhibtay, wadnahana waa laga qabtay. 1978dii isagoo miisaankiisa aad u culus yahay, waxaa hal mar galay jaceyl aad u culus kaas oo ninkan dhib gaarsiiyey. gabar ayuu jeclaaday, guur ayuuna usoo bandhigtay. laakiin gabartii uu guurka u bandhigtay way ka ogolaatay, wuuna guursaday. jaceyl ka galay ninkan wuxuu ahaa mid laga dareemayey inkastoo miisaankiisa waxba iska bedelin. jaceyl iyo wax lamid ah miisaankiisana hoos uma dhigi karin ninkan. gabadha markii uu guursanayay miisaankeeda wuxuu ahaa 50 kilogram. rikoor cusub ayuuna dhigay Minogue. wuxuu jebiyey rikoorka farqiga ugu weyn ee miisaanka u dhexeeya lamaanaha isqaba. xaaskiisa Jeanette 50 kilogram ayay ahayd markii uu guursanayay. guurkooda kadib gabarta uu guursaday waxay u dhashay 2 caruur ah. dunidan ayuuna kaga tegay. labadaas caruur loo dhalay ilaa hadda way joogaan, aabahood ayaana taariikh ka tegay. miisaanka guud ee ninkan wuxuu ahaa 635 kilogram. sanadba sanadka ka dambeeya miisaankiisa wuu sii korayay ilaa uu gaaro heer jirkiisa dhan uu bararay, kuna adkaatay neefsashada iyo socodka. markii dambe isbitaal in la geeyo ayay noqotay ninkan, laakiin waxaa aad u adkaatay sida loo qaadi lahaa maadaama 635 kilogram uu ahaa culayskiisa. waxaa la gudagalay sida ugu fudud ee isbitaal lagu geen lahaa. 2 sariir oo la isku xiray lana macbileeyey ayaa loo sameeyey Monique iyo bareelo si gaar ah loo habeeyey si loogu qaado loona geeyo isbitaal ku dhex yaalay jaamacadda Washington ee dalka Maraykanka. haddaba wax la yaab kale ayaa ah in markii sariirta la sameeyey loo baahday dad ku qaada sariirta. la yaab ma aaminaysaa 14 qofood ayaa loo yeeray si ay ugu riixaan sariirta. hal qof ilaa 8 qofna maba riixi karin ninkan culayskiisa darteed. ugu dambeyn si rafaad leh ayaa loo geeyey isbitaalkii. liiska 10 qof ee ugu miisaanka culus dunida waa kan. waxaan hogaaminayaa John Brewer Minogue sida kuu muuqata. waxaa ku soo xiga Manuel Uribe. 10 qof ee ugu miisaanka culus waxay u dhasheen dalka Maraykanka, marka laga reebo ninkan kaalinta labaad ku jira ee Mexico u dhashay ee Manuel Uribe. miisaanka dadka caadiga ah celcelis ahaan wuxuu noqon karaa 100 ilaa 100 iyo wax la jira caadiyeen, laakiin ninkan iyo 10 qof ee ugu miisaanka culus dunida isaga ayaa hogaaminaya, lamana gaari karo marnaba. waqtigaana in la helo way adkaatay qof miisaankiisa yahay ku dhawaad 600 iyo wax la jira. bal maxaa qasbay in dadka Maraykanka ku nool 10 qof ee ugu miisaanka culus dunida ay ka galaan kaalmaha ugu horeeya? cunto ahaan wadamada kale miyay ka wanaagsan yihiin mise wax kala baa jira? idinka ayaan idin daayay. si walba oo xaaladda ninkan loola tacaalo 28 bilood kadib ayaa laga soo bixiyey isbitaalka isaguna miisaankiisa uu ka go'ay 429 kilogram. 216 kilogram ayuuna noqday miisaankiisa markii isbitaalka laga soo bixiyey. farqi weyn ayaana u dhexeeyey. waxaa lagu amray inuu cuno cunto gaar ah ay dhaqaatiirta u qoreen. sanad kadib miisaankiisa wuu sii koray maadaama bannaanka la keenay, wuxuuna noqday 432 kilogram. waayaabe macayilka ayaa iska jeclaa qofkan. ugu dambeyn John Brewer Minogue, ninka ugu miisaanka culus dunidan, wuxuu geeriyooday 1983 isagoo culays ahaan ahaa 362 kilogram. ilaa hadda wuxuu ku jiraa kaalinta koowaad qofka ugu miisaanka culus dunida soo maray 635 kilogram. fadlan like saar muuqaalka haddii aad ka heshay. waa anigoo ah Juulo Shaakir oo idin leh ilaa bari muuqaalkeena xiga. caafimaad, nabad iyo baraare baan idin rajayn. nabadey. fadlan haddii aadan subscribe saarin janaalkeena ama aadan follow soo dhihin barteena TikTok-ga, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto kana mid noqotid dadkana gaarsiiya meesha aan doonayno.